musharaxa golaha deegaanka ee degmada Berbera Axmed Cabdi Xirsi Axmed Ameerika nambarkiisa codeyntuna yahay 304 kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maalinimadii shalay waxa magaalada Berbera uu ku soo bandhigay cududiisa taageero boqolaal kamida taageerayaasha musharaxani ayaa waxay socod luga ku soo mareen jidadka waaweyn ee magaalada Berbera iyagoo sidoo kalena watay gaadiid aad u tiro badan taageerayaasha musharaxani ayaa sidoo kale waxay siteen astaamaha murashaxani musharaxa taageerayaashiisa ayaa wafdiga gudoomiye Ciro oo shalay soo gaaray magaalada Berbera waxay ku soo dhaweeyeen duleedka galbeed ee magaalada Berbera musharax Axmed Cabdi Xirsi ayaa waxa uu meel fagaara uu kala hadlay taageerayaashiisa waxaana uga mahadnaqay soo baxane ay sameeyeen sidoo kalena waxa uu fariin u diray bulshada reer Berbera alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa qadaray maanta inay noqoto maalintii horeysay ee xisbiga wadani uu halka ka soo bandhigay quwadiisa marka uu soo dhaweynaya dhammaan madaxda sharafta leh ee uu hogaaminaya madaxweynaha mustaqbalka dhow Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Cabdiraxmaan Ciro marka waxaan iyagana soo dhaweynayaa wafdiga waxaan soo dhaweynayaa labaad iyagana wafdiga sharafta leh ee uu hogaaminayo madaxweynuhu halkan waxa maanta ku soo bandhigay quwadooda golaha wakiilada iyo golaha deegaanka oo isku sidkan xisbiga wadani runtii xisbi ahaan waxa uu soo xulay dadkii aan ula karaysay iyaga ayaa maanta matali kara oo bilaa godob ah oo iyagu ah dad magaranaysa dee khibrad fara badan u leh iyo daacadnimoba inay ku hogaamiyaan labada goloba marka labaad dadkaas waa dad dhallinyaro ah maanta dhallinyarada ayaa mustaqbalkii oo dhammi ku jiraa sidaa darteed waxa weeye dhallinyaro ayaana wax doorata dhallinyaro ayaana maanta sharaxan sidaa darteed waxaan doonaynaa in xisbiga wadani dhallinyarada ka sharaxan la siiyo codka inta u fara badan dadka waxaa laga dhaadhiciyaa xisbiga wadani cid baa iska leh xisbiga waxaa lagu shaqanayaa codkaaga waad waayeysaa oo wax ka jiraa ma jiraan xisbiga wadani xisbi isagu ka maamul wanaagsanina ma jiro sidaa darteed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaashayda waxaan kaloo aad iyo aad magaranaysaa ugu mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha gobollada kala duwan jooga sidaa darteed annagu waxaanu diyaar u nahay inaannu dhisno dadka halka ay kuwii horena dhiseen iyagu ay dhiseen dhagaxaan yaryar iyo laamiyo annagu waxaanu dhisi doonnaa insha allahu tacaala dadka cabdirasaaq qaasin telefishinka saab magaalada Berbera.